آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، كلمة ير أو علماء يسوع مالين وكلمة كنتي لو تركلي إن نبكي دعي وكمان قلوب غير سامي dadka in badan ay la xanuunsadeen in badanna weli ay maaragtay aad arrinka u dareemayaan culayskeeda musiibadii dhacday oo ka dhacday ex-control amkoodii dad badan oo muslimiin oo abriye ah oo mid shaqo tagayay iyo mid iskuul waxbarasho u socday iyo mid si kale u danaysanayay musiibo iyo halaag caama meesha uu ku qabsaday wax runtii aan laga sheekeyn karin ay dhaceen dhammaan aad ka wada daragsantihiin oo ay dhacday qof inuu ku farxo qofkiisii burburkiisii inuu helo xoogaa halaadiya qofkiisa ka hela ay farxad u ahayd oo dadka qaar dadkoodii al-aana ay la-yihiin cad maaragtay midna ay kala yihiin arrinka noocaasa marka waa arrin mudan in bal xoogaa culimadu dadka ay la qaybsadaan dhibka maadaama culimada bulshadiina ay kamid yihiin indhihii bulshadana ay yihiin in bal arrinka xoogaa dadka lala qaybsado oo dhammaanteeda muujino arrinka culayska uu leeyahay dadkii inkuu gaarana aan maaragtay duco iyo allabari aan u samayno annagoo wada jirna waxyaalo badanna aan isxasuusino markii dhib dhaco dadka muslimiintahay ma ahan dhacdo kastoo dhacda in la iska moodo maha dhacdooyinka dhaca waxbaa lagala haraa waxna waa laga bartaa taasaa marka kelimadda ujeedkeeda iyo qasadka koowaad oo guud uu yahay kelimaddan insha allahu tacaala culimada ayaa maaragtay kala qaadan doona waxaana ugu horeeya oo kelimadda ugu horeysa bal dhibkii dhacay iyo sida uu maaragtay iyo sida uu ahaa iyo waxyaabaha nala gudboon markuu dhibkaas oo kala dhaco horaan dhibka usoo dhaceen sheekh axmed yare ayaa insha allahu tacaala bal wax yar dhihi doona kadibna waxaa uga dambeyn doona sheekh axmed imaam iyo culimada kale oo iyaguna kelimaad ku saabsan dhihi doona waana isku xiri doonaa insha allahu tacaala muxaadarada si isku xiran ayay u dhici doontaa marka si degan aan uga wada faa'iidaysano biidni illahi tacaala ilaahayna subxaanahu watacaala khayrka hana waafajiyo hana nagu toosiyo haddana waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh axmed yare. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dhacdooyinka ama ha noqdaan yani masaa'ib ama imtixaan kale ha noqdaan dhacdooyinka in lagu dhaafo waa la arki jiray waa dhacday ha laga socdo ma ahan dhaqanka mu'miniinta bal ilaahay wuxuu ka tilmaamay dhaqanka noocaas oo kale ah oo aan wax cibro qaadasho ah iyo wax kaga aadan aan fiirineynin inay yihiin dadka noocaas ah ummadaha aan muslimiinta aan ahayn oo allah subxaanahu watacaala fi suurati alacraaf buu wuxuu ku yidhi huma badalnaa makana asayi'ati alxasanata xataa cafow وqالوا qad masa آabاءna الضراء والsراء faأkhadnaahm bغtة dad wuxuu sheegay ilaahay marna uu barwaaqo siiyey marna lagu adkeeyey xaaladda laakiin wax ay ka dheefeen aan jirin oo aan ahayn inay dhahaan qad masa آabاءna الضراء والsراء weligeen waa aabbayaalkeen dhib iyo xaalad culus iyo xaalad fududba waa lasoo arki jiray dadkaas ilaahay aan cibro qaadanin wou eedeeyey rabbi subxaanahu watacaala oo aan yacni
dhacdooyinka kuwa aan ku cibro qaadanin. mar kale alla wuxuu yidhi wadakirhum biayaami illaah, yacni waxaad ku xusuusisaa ood ku waanisaa yacni maalmaha ilaahay subxaanahu watacaala, ama ha noqoto maalmo adag ama ha noqoto maalmo fudud. taa marka in dadka lagu waaniyo waaba waxa ilaahay ambiyadiisa marka waa waxa kugu asiibayo diintaada, naftaada, maalkaaga iyo ehelkaaga waxa kugu asiibo. waana kala culus tahay, waana kala daran tahay. oo allah subxaanahu watacaala musiibadaana waxay u imaaneysaa lilibtilaa'i waalimtixaan, ibtilaa' iyo imtixaan. oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wanabluukum bishari waalkhayri fitna, waxaan idinku imtixaanaynaa khayr iyo shar, labadaba fidno waay, marka waa imtixaan. wuxuu kaloo alla yihi subxaanahu watacaala wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun, waxaanu ku imtixaanay xaalado wanaagsan iyo xaalado xun. waxaasoo dhan marka inay laabtaana laga rabaa, ay soo noqdaan oo ay ku cibro qaataan. musiibada marka waxaa ugu daran lagu musiibeynayo oo ugu horeysa midda diinka lagaa musiibeeyo. haddii diinta lagaa qaato oo diintaada ay musiibo ku dhacdo, musiibo midda ugu daran taas waayo. midda nafta iyo midda maalka iyo midda yacni waxyaabaha la xiriira waa laga kabsan karaa, laakiin diinta haddii lagaa musiibeeyo waa kuu dhammaatay. walidalika xadiidka tirmidi ku sugnaa min xadiidi ibni cumar radia allahu canhuma, waxaa nebiga ducooyinkiisa ka mid ahaa, bal ibnu cumar uu yidhi qalamaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaquumu min majlisin xataa yadcuwa bihaa-ulaa'i dacawaat. waxaa yareed nebigu inuu majlis ka kaco ilaa uu ducooyinkan ku ducaysto. waxaa ka mid ahayd walaa tajcal musiibatanaa fii diinina, ilaahu musiibadeenna diinkeenna dhexdiisa ha yeelin. yani haddii musiibo ay dhacayso ilaahu diinta nooga ilaali. taasay ahayd hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam majlis walba uu uga ducaysa jiray. shurayx alqaadi oo xilligii saxaabada qaarkood waqtigii cuhmaan iyo waqtigii cali iyo ahaa qaali ahaan jiray, a'imadii salafka waaweyneydna ka mid ahaa, ayaa wuxuu yidhi ama laga wariyey innii la usaabu bilmusiibati, musiibada ayaa la igu asiibayaa, fa axmadu llaha calayha, ilaahay baan uga mahad celinayaa 4 maraatin 4 jeer. waxaa ku jirtay marka 4taa jeer uu sheegay idaa lam takun acdama mima hiya, ila ilaahay waa awoodaa fidnada mid inta ay tahay mid ka weyn inuu keeno waa awoodaa. haddii uunan ka weynaysiinin inta ay tahay musiibadu, ilaahay baan uga mahadnoqaa, ilaa mid ka weynna waa igu ridi karay. tan kale ee labaad ee ku jirtay maxalu shaahidka aan ka rabana waxa ay tahay waxa uu yidhi waaxmaduhu idaa lam yajcalhaa fii diini, ilaahay baan uga mahadnoqaa hadduusan diintayda ka dhigin. waxa aan waayey oo aan ku khasaaray haddaysan diintayda ahayn allaan uga mahadiyaa ayuu yidhi. 4tii shay marka labadaas ayaa ku jirtay. masaa'ibtu markay dhacaan qofka waxaa laga rabaa awalan alictibaar, inuu cibro qaato oo uu markiiba ilaahay u laabto. meesha ay wax naga yacni aan gacanta ka heli karno, kaalmada ka heli karno dhammayska tiran waa allah subxaanahu watacaala xaggiisa, iyo inaan ogaano inay ku timid masaa'ibta dhacayso innaga marka yacnii masaa'ib innaga marka dunuubteeda iyo aan leenahay. markaan saa leeyahayna uma jeedo qofka gaar ahaan musiibada ay ku dhacday inaan dembi ku ogahay ma aha, laakiin ujeedku wuxuu yahay dunuub aan jamaaci u samaynaynaa jirto oo dhul ilaahay uusan jeclayn, raalli ka ahayn, dhulka korkiisa aan ku samaynayno. taana ilaahay wuxuu leeyahy dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas. fasaadku dhul iyo cirow ka muuqday, yani waxaan ujeedaa beri iyo bad, yani baadiyihii iyo beledkiiba waa kasoo daahiray. bimaa kasabat aydi nnaas, muxuu uga muuqday? gacmaha dadku waxay shaqaysteen. ma inkiri karna taas. qofka wuxuuna musaab yahay oo xaqiiqatan la musiibeeyey markay intay musiibo ku dhacdo oo rabbigiis u noqon waayo, waa musiibeysan yahay.
laakiin marka intuu rabbigii u laabto uu ka faa'iideysto qofkaasi musiibada wanaaguuba uga baxaybo. taa marka waa inaan ogaano. ta kale ilaahay wuxuu leeyahy wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir. wixii idin asiibo musiibo ah waa waxay gacmihiinu shaqaysteen, wax badanna ilaahay waa cafinayaa, waa dhaafayaa buu yidhi. taas marka waa lilictibaar, horta inaan ilaahay u laabano, aan ilaahay u towbad keenno. bani aadanaan nahay, dunuub iyo waxyaabo fara badanaan geysanaynaa, aniga keyga iyo kaaga iyo dadka marka la ysku daro kuwa ay geysanayaan waa noogu filan tahay waxna lagu ciqaabo. laakiin ilaahay xilmigii dulqaadkiisa iyo cafiskiisaan ku joognaa. taas marka marnaba inayna maskaxdeenna ka bixin waaye. qofkay maskaxdiisu ka baxdeen wax kale iskugu sheekeeyana waa qof aan xaqan qofka dhabtee musiibeysan kaas waaye, oo aynan ka haraynin musiibadu. waxaa kaloona laga rabaa xusnu danni birabbina, rabbigeen inaan malada u wanaajino, inaan rabbi malada u wanaajino oo marnaba aanan dhihin rabbi baana dulminaayo, ilaahay baa wax anagoon waxba geysaninba waxaan nagu salladay, inaanan marnaba dhihin. liannahu maa rabbuka bidallaamin lilcabiid, rabbigaa addoommada ma dulminayo. rabbi mid addoommada dulmiyo ma ahan. wuxuuna xadiidulqudsigii ahaa yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu. addoommahaygow dulmiga nafsadeydaan ka xarimay, dhexdiinana xaaraanaan ka dhigay, hays dulmininuu yihi yani allah subxaanahu watacaala xadiidulqudsigii. tan labaad, mala xun inaan ilaahay loo qaadin oo aanan mala xun rabbi ka malaysanin rabbigeen. oo ilaahay subxaanahu watacaala dad aan wanaagsanayn buu ka hadlayay, markaasu wuxuu yidhi yadunnuuna biاllaahi gayra alxaqi danna aljaahiliya. ilaahay bay waxay ka malaynayaan mala aan xaq ahayn, maladii jaahiliga. taas marka waa inaan aada iskaga ilaalino. mar kale alla wuxuu yihi wayucadib allahu almunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlmushrikiina wاlmushrikaati الظaaniina biاllahi danna الsaw calayhim daa'iraة الsaw waqdiba allahu calayhim. dadka marka malada xun waxyaabaha ka midkaana malada xun waxaa ka mida waxyaabaha dhacayo qadarka alle inay ka baxsan tahay inaan u malayno. wax un iska dhacayo qadarka ilaahay ka baxsan inay tahay inaan u malayno. malada xun waxaa ka mida waxaan nagu dhacayo annaga inaan aamino inay wax naga maqnaan lahaa ay ahaayeen. waxaasoo dhan marka waa malo aan fiicnayn. ilaahayna subxaanahu watacaala musiibada markay dhacdaa dadka wuxuu tilmaamay alla uu yidhi maa asaaba min musiibatin ila biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah. musiiba ma yani qofka kuma dhacdo ma timaado ilaa biidni illaahi unbay ku timaadaa. ilaahay idinkiisa iyo qadarkiisa unbay ku imaaneysaa. qofkii alla rumeeyana ilaahay qalbigiisa waa hanuunina. hanuunkaasna marka qalbigiisa qofka la hanuuninayo, ibnu cabaas waxa uu yidhi yahdi qalbahu lilyaqiin. ilaahay qalbigiisa yaqiintuu ku hanuuninayaa. fayaclamu ana maa asaabahu lam yakun liyukhdi'ah. wuxuu ogaanayaa wixii asiiba inaynan gafaynin awalba. tana laga rabo marka aan ogaanana taas istirjaaci iyo inaanan ka tegin. oo ilaahay uu yihi aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. kelmaddaas marka macno weynay sameynaya, waa kalimatu isticaana waay. ilaahay baan kaalmo ku weydiisanaynaa inuu na kaalmeeyo na kabo, kamana maaranna kaalmada ilaahay subxaanahu watacaala. kelmaddaasna marka inaan iyadana qofku markay musiibada ku dhacdo ou rabbi xusuusto, qadarkii xusuusto, ogaado inuuna waxaan ka baxsa lahayn, hadda kadib inuu yacni acmaashiisii dib ugu laabto ou saxo wixii markaa ka qaldanaa. wahaakadaa sidaasna marka uu uga socdo, rabbina ou u sabro xaggiisa. sabarku waa waajib, waa waajib. musiibo markay dhacdo in la sabraa waa waajib. waayo waxa sabarka kasoo horjeedo waa iscaraysiin iyo tasakhud iyo qofku inuu ilaahay u xanaaqo waayo. mana yeelayna sidaas nacam. oo waxaa nala amray waxay tahay sabarka inaan la imaano. sidoo kale qofkii ku daraya markaasi dee inuu raalli ku noqdo oo yacni ku raalli ahaadana waa darajo kaloo sii fiican.
waxaa kaloo waxyaabaha dersiyada aan qaadanayna ka mid a masaa'ibta ku xeeran waktiga musiibada ay dhacdo shaydaanku dadka waa ka faa'iideystaa. qofka aan ku rabin iyo qofka adiga ku rabo labadaba waxay kuu muujiyaan inay wax kula qabanayaan, laakiin in badan oo waxaa jirta adiga aan wax kula qabanaynin oo adiga godka un kugu sii ridaayo. taas marka inaan aada iyo aada uga fiirsanno. kuwa godka kugu ridaya marka waxaa ka mid a ummadaha ilaahayba uu tilmaamay marnaba yacni dhibkeenna un inuu farxad gelinayo, dhibkeenna kuwa inuu farxad gelinayo alla uu ku tilmaamay ee uu yidhi alle wadduu maa canidtum, waxay jeclaysteen idinka dhibkiina. axad marka ilaahay ou dhahaayo dhibkaaga uu jecel yahay hadduu adiga kuu muujiyo saaxiib iskaga kaa dhigo maahan inaad ku siranto ood ku daganto, maya. walidaalika mithaalan soo qaadanayo Kacb ibnu Malik radia allahu canhu, saxaabigii dagaalkii Tabuuk nebiga uga haray ee kabacdina ay dhacday in laga aamusnaado 50 habeen laga sii aamusnaaday iyo meelaha nebigu sal ll ly slam uu yihi ilaa alla arrinkiina uu kasoo xukumayo yaan lala hadlin ee la gooyey. musiibadaas markuu ka sheekeynaye ku dhacday wuxuu yidhi anoo suuqa socdo ayaa waxaan arkay nin Kacb ibnu Malik aaway dhahayo waa la itilmaamay, warqaduu ii keenay, boqor bay ka socotay warqadaas, boqoradii gaalada ka mida Melika Khasaal ayay ka socotay. waxyaabaha uu yidhi marka ama risaaladaa ku qornaa waxaa ka mid ahaa, wuxuu yidhi amaa bacdu fainahu qad balaganaa ana saaxibaka qad jafaaka, waxaana soo gaartay saaxibkaa Moxamed inuu ku gooyey, walam yajcalka allaahu bidaari hawaanin walaa madyaca, ilaahayna meel dulli iyo meelaad ku dayacanto kuma dhigin. falxaq binaa nuwaasika, annaga noo imaaw waa ku xiriirinaynay, yacni xaggeenna imaaw ayuu yidhi falxaq binaa nuwaasika. markaasuu Kacb ibnu Malik wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi xiina qara'tuhaa markaan aqriyey warqadaas, wa haadihi ayda min albalaa, haddaad dhibaato ku jirtaa iyo musiibo, midaana musiibo kala way oo yacni lagula soo qasday. fatayamamtu bihaa ila tannuuri fasajartuhaa, warqadii waa qaaday tinaarkii dabka ayaan geliyey, waa shiday buu yidhi, dabkaan ku riday, waa gubay warqadii dhan dambasaan ka dhigay. maanta marka waxaan u baahannahay waxay tahay inaan ku dayanno dadka akhyaarta ahaayo afkaaro badan oo annaga inta diinteenna aan haysanno lagu waxyeeleynayo oo masaa'ibtaana loogu soo gambanayo inaan qashinka ku tuurnaana laga rabaa, oon dabka ku ridno. qof isna isaga in diinkeenniiba aan raalli ka ahayn, nebigeennii yacni aan raalli ka ahayn, bal nebigeennii caynaayo, muxuu annaga noo hayaa? waxuu noo haynaya male. masaa'ibta marka wuxuu isaga kaa dhigaa sadiiq xamiim ah, saaxiib ah oo dhow buu isaga kaa dhigaa, laakiin diintiibuuba rabaa inuu kaa siibo kaalana wareego. ayb oo wuxuu kaa dhaadhicinayaa masaa'ibtan waxa kuu keenayba waa diintou kuleeyahay. nacam maya, diinta ilaahay subxaanahu watacaala waxay u timid bani aadamka inay nolol wanaagsan u furto. taariikh ahaan iyo yacni baraatika ahaanna waa loo arkay. nabigeena sala allahu calayhi wasalam asxaabta markay diinta ku noolaayeen caalamkao dhanna ay gaarsiinayeen meeshaas marka yacnii siiradii nebigoo nool oo baaqi ahaan ujeeda hadda, iyo yacni qur-aankii awaamirta uuna faraayo siday xikmad iyo maslaxad ugu dhisan tahay, mafsado ilaa in allah subxaanahu watacaala uu yihi laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim. xaggeen uga tegaynaa marka? ta kalena waxa ay tahay dadka ayagana fikradaha qallooco iyo caqiidada baas ee ilaahay keyrkiis in lagu xirmo oo ay u haystaan dadku markay ilaahay keyrkiis ku xirmaan oo ilaahay keyrkiis ay baryaan oo ilaahay keyrkiis ay markaa rajeeyaan inay dadku markaa fiicnaanayaan kuwa u maleeyo, dadka waxay ku wadaan halaag. maaha iyagana in lagu kadsoomo masaa'ib markay dhacdo, iyaguna dadka waxay iskaga dhigaan dad marka yacni wanaagooda ka shaqaynayo. waxaa laga yaabaa inaysan diin barin, tawxiid inaynan barin, sunno nebi inaan laga baranin. dadka noocaas oo kale noocyadaa u fakeraya ama caqaa'idkaas oo kale qabana, qofku marka uu musiibeysan yahay oo shaydaanku uu ka faa'iideysan karo ayay iyagana xagga kale uga imaadaan.
waxyaabahaas marka waxay ka mid tahay duruusaha inaan qaadanana laga rabo mar walba. haddii maalkaagii iyo naf saaxiibkaa ama wiilkaagii ama gabadhaadii ama xaaskaagii haddii naftoodii aada weysay diintaada haweynin. ta kale ugu dambayso warkayga aan ku gebagabaynayo waxay tahay dadka kale ee iyaga nool oo ilaahay nolosha baaqi u yeelay ama caafimaadka qaba waxaa la gudboon inama almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo. qofka muslimka ee walaalkaa marka ay musiibo ku dhacdo garabkiisa inaad noqoto. wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi. qofka wuxuu ku jira ilaahay kaalmadiisau ku jiraa inta uu walaalkiis kaalmeynayo oo garabka uu haayo. waxaana laga rabaa marka waxay tahay qofkii jaah iyo weji ku yani wax ugu qaba karo dadkan marka dhaawaca noqday ee musiibadu gaartay, kuwan agoontoobay, kuwan haweenkan nin la-aanta noqday, waxyaabahaas oo dhan ee kaalmada u baahan in kaalmo maadi iyo macnawi labadaba la iskugu daro oo markaa yacni lagu dadaalo. kan dhaawaca ahee yani dhibaatoonna dhaawiciisaas in markaas sidii uu uga bogsoo lahay yani lagu dadaalo. waana laysku keen imtixaanaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun. adiga isaga hadduu dhaawac yahay adigana aada caafimaad qabto waa lagugu fiirina. yani wabalownaahum bilxasanaati wasayi-aati. adiga caafimaadka qabo kaasaad ku imtixaanan tahay, isagana adigu kugu imtixaanan yahay. imtixaankii marka waxaa la rabaa in looga baxo wixii markaa yacni gacan u baahan maal, wixii u baahan daawo, wixii u baahan dhiig, wixii u baahan yacni baahiyaha waa fara badan yihiin. baahiyahaas inaan daboolno ayaana laga rabaa oo aan marka intaan awoodi karna aan u daboolno inagoo markaas ka soo baxayno waajibkii nalagu lahaa. weliba qof noloshiisa haddaad sabab u noqoto waman axyaaha fakaأnamaa axya الnaasa jamiica. anigu intaasaa kelmadeyda aan ku gebagabayna. hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih. jazahu allahu khayran sheekh xamdiyaale runtii kelimad waxaan isleeyahay xoogaa yar dadka xanuunkii jiray waxbay ka khafiifinaysaa ayuu jeediyey. ilaahay miisaankiisa u saaro anaga nagu anfaco. ikhwaani fillah, kelimada sheekha waxyaab ayaan raacinaya. waxaa weeye dhibku markuu dhaco ayaan markasta dareenaa. sheekhu wuxuu sheegay hadda dadka in loo dulgudo loo gargaaro. aayadda ugu dambeysay dawladiisa waman axyaaha fakaأnamaa axya الnaasa jamiican. waxyaalaha aada ula yaab kale waxaa ka mid ah oon dhowr marna aan maqlay oo dhammaantiin aada wada maqasheen. magaaladaani dhib badan baa ka dhaca. waayahan dambe waxay iska noqotay dhibaatooyinku inay ka dhacaan. ilaahay subxaanahu watacaala ha ka rafciyo. ilaahay magaaladoona amni iyo ammaan iyo iimaan haysata oo waxa weeye daacadiisu sarreyso ilaahay subxaana watacaala ha nagu nooleeyo. waxa ugu muhiimsan oo ganacsatada iyo isbitaallada iyo waxgaradku dhammaan ay qaban karaan. dadku markay sidaan oo kale dhib caam oo u dhaco, isbitaalladu ma laha bunuug dhiig ma laha. qofkii marka inta dhiiggiisii la raadinayo oo laleeyahay yaa dhiig u shuba ayuu qofkii dhimanaya. marka risaalooyinka iyo fariimaha aan dhiibayna waxaa ka mid ah waxa weeye isbitaalladu ha sameeyeen, ganacsatada iyo cidda kale ha kaashadeen, bunuug dhiig ha sameeyeen. dhiigga dadkiibaa shubaya. dadkii annagaan la hadlayna, masaajidiyaa lagala hadli, idaacadihii baa lagala hadli, tvdii baa lagala hadli, dhiiggiina waa lagu deeqaya. laakiin bunuug dam in la sameeyo oo hadda dhibkii dhacay oo kale dadka qaar aysan dhiig la-aan u dhiman, waxyaalaha noocaasana waxay ka mid tahay dadka waxyaala lagu nooleynayo. taana waan daba dhigi lahaa. kelimada kaloo xigta, hadda markii musiibooyinku, maxaa musiibooyinka looga gaashaantaa? musiibooyinku waa dhaceen, wixiina looga baahnaa sheikhu uu noo sheegay. musiibooyinku markay dhacaan maxaa looga gaashaantaa? intay isa dhicin ka hor maxaa looga gaashaantaa? hadday dhacaanse kadib maxaa looga bagsadaa? ayadana kelimada noocaasa sheekh axmed imaam ayaa iyadana noo dhihi doona. sheekh fadal. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin,
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كلمة الشيخ أحمد waxaan ku dhamaystirayaa zaawiye yar oo ah sunnooyinka Ilaahay oo aan isbedelin waxaa ka mid ah احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وسنة إلهي وان اسبدلين او إلهي حفظي سونا بحفظنا يا وقتك أد وناكسن تهي وبرواقيسن تهي إلهي برو سونا وقتك عليسك وجر أيوك برنا marka xadiidku uu leeyahay tacarraf ila allahi kulligeen ilaahay waa naqaanaa laakiin nabigu wuxuu naga doonayaa macrifo gaar ahaaneed oo ah dadaal ku salaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa iyo nawaahidiisa in aada loo xijiyo oo qofku uu dadaal badan ku bixiyo inta uu barwaaqaysan yahay uu hagaagsan yahay inuu aada isaga ilaaliyo dembiyada ay khatartu ka imaan karto si guud ama si gaar ahaaneed. marka waa xadiid aada iyo aada u macno weyn aada iyo aada u cajiib badan weeyaan oo ay dhihi jireen bacdu salaf markaan xadiidkan xusiistoba waa la yaabaa macaanida ku jirta. ilaahay xifdi isaguna waa ku xifdinaya waana qaacido kaleeto oo sharciga oo ah aljazaau min jinsi alcamal abaalmarku wuxuu waafaqsan yahay qofka waxa uu qabto. ilaahay see loo xifdinaya waxaa loo xifdinayaa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa iyo xuduudiisa in la ilaaliyo oo qofku uu ku dadaalo inuu iska ilaaliyo kabaa'ir iyo saqaa'ir iyo shirki iyo kufri hadday wax ka dhacaan khalada ay ka dhacaana markiiba uu isaga dhaqo isaga dahiro tooba keen baa loo baahan yahay. marka ilaahay markii aada xifdiso ayuu isaguna ku xifdinaya. waa inaad xifdi la imaata waa inaan la imaadnaa xifdi ilaahi oo markaas aan inagu ku helno xifdi si guud iyo si gaar ahaaneed waa inaan inaku la imaadnaa asbaabtii xifdiga. marka xifdiga ilaahay uuna xifdinayo waxay isugu jirtaa masaalixdeenna adduunyo inuu noo ilaaliyo caafimaadkeenna nafsadeenna ahalkeenna maalkeenna ilmaheenna waa masaalixdii adduunyada. xifdiga ilaahiga waxaa ka mid ah xifdu diin inuu kuu ilaaliyo diinka oo uu kugu dhowro diinka oo uu kaa ilaaliyo shubuhaadka kuu soo dhuunta waqtiyada khatartu ay jirto ama shahawaadka nafsadu ay danaydo inuu kaa ilaaliyo. waana xifdiga midka ugu muhiimsan ilaahay inuu kaa badbaadiyo waxyaalaha diinkaada dhaawaca ma khatarta geliya oo ah ashahawaat wa shubuhaat almudilla. xifdigaas markaa qofka uu ilaahay xifdiyo isagana uu xifdiyo waxaa ku wada jira markaas masaalix diineed iyo masaalix adduunyo. nin ka mid a culamada shaaficiyada la yihahdo abutayib atabari iyo isagoo 100 sano jira ayuu god ka booday. markaasaa dhalinyartii la socotay waxay dhaheen 100 jir booda ayaa tahay bal ka waran. markaasuu yidhi xibnaha aada u jeediin waqtigaan yaray ayaan ilaali jiro xifdi jiri markaan gaboobayna xifdigeedii ilaahay baa la wareegay ilaahay baa ilaalinaya. iminka anigu idinkama xoog yari meeshaad ka boodina waa ka boodi karaa. sidoo kale bacdu alculamaa baa waxay arkeen nin aada iyo aada u gaboobay aada u dhibaataysan aada wax u baryahay. markaasaa nin wuxuu yidhi ninkaas markuu yaray ayuu ilaahay dayacay markaas baa isaguna markuu weynaaday ilaahay uu dayacay.
ninkii baa loo yeero waxaa la yidhi markii aada yareed ma ku wanaagsaneed diinka markaasuu yidhi maya yaal suuqan ahay ma fiicnayn buu yidhi markaan yaraa bacdu salaf baa waxay dhaheen haddaan ilaahay caasiyo cisyaankaas waxaan ka dareemaa huu yidhi daabadda aan fuushanahay dabeecaddeeda khaadimka ii shaqaynahaya dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa aan ka dareemaa buu yidhi marka dembiyada la sameeyo ayaa dhibaato kasta sabab u ah nin baa masaajid usoo baxay isagoo masaajidkii usoo socda ayaa nin ka hor yimid markaasuu gacan u qaaday markaasuu wuxuu yidhi wax yar isug waa laabtay guriguu ku laabtay markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow ninkaas sababka aada iigu salliday oo dembiye aan hadda ka hor sameeyey ayaan kaaga toobakay saas u yidhi markaasuu soo laabtay markaasuu ninkii soo agmaray mise markaasuu yidhi maxaad u laabatay markaasuu yidhi sababka adiga la igu kaa salliday dembiyadii dhalay ayaan ka tooba keenaya iminka waxba iguma samayn kartid buu yidhi waayo sababkii waa soo xiriyey waana iska agmaray waxaa dhici karta weliba in xifdiga qofka uu nafsadiisa xifdiyo iyo dadaalka isagoo nafsadiisa uu ku bixiyo uuna ilaahay isaga kaliya ku ilaalin xataa ilmihiisa uu ku ilaaliyo wa ama aljidaaru fakana ligulaamayni yatiimayni fi lmadinati wa kana taxtahu kanzun lahuma wa kana abuuhuma saalixan iyo ibnu cabaas wuxuu yidhi iyaga salaaxood lama sheegina aabbahood baa la sheegu yidhi aabbahood salaaxoodii ayaana ilaahay ku ilaaliyu yidhi iyaga aabbahood wanaag u lahaa jiro ayaa ilaahay iyaga ku dhowru yidhi wuxuu kaloosi yidhi saciid ibnu sayib raximahullah wiilkiisu wuxuu ku yidhi salaada aan dukanayo oon badinayo ma arkaysa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi waxaan rajaynaa salaadayda badan inay noqoto sabab adiga lagu ilaaliyo markaasuu aayaddaas akriyey wakana abuuhumaa saalixan faaraada rabuka an yabluga ashuddahumaa wayastakrija kanzahumaa raxmata min rabbik marka waxaan ku dadaalaynaa si guud ahaaneed soomaali oo dhan asbaabta xifdiga inaan ku dadaalno oo soomaali waxaad moodaa in culays badan uu saaran yahay meel kastoo joogto wuxuuna ka yimid un khaladaad iyo dembiye isfuulfuulay oo bannaanka usoo baxay oo inkaarkoodii sidii la rabay uuna noqon marka dhammaan waxaan isleeyahay albaabka kaliyaho noo furan wuxuu yahay tawba caam ah iyo istikfaar caam waxyaalaha lagu ilaaliyo ama lagu kor yeelona waxaa ka mid ah cuquubaadka caamka alistikfaar allah wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun markaa inaan badino tooba keen iyo istikfaarta inaan aada u badino waxaan isleeyahay waa albaabka kaliya oo noo furan meel kale oo wax rajaahu ay ka muuqato haba yaraatee ma jiraan laakiin intaasaa nagu filan wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun wixii diinkoodii ka baxay oo nuxur ka goobay 3 ilaah baa jirta oo mid isku ah diinkoodii usoo laabteen aaba'doodii muslimiinay ahaayeen ajdaaddoodii muslimiinay ahaayeen diinkoodii u laabteen kolba wax nuxura ugu tegi maayaan adduunyada iyo aakhiro 3 ilaah baa jirta oo mid isku ah kuwa gaaray wax ilaah la yidhaahdo ma jiraan oo ilxaad nuxur ka goobay wax nuxur ah oo adduunya iyo aakhiro ilxaad ku jira ma jiraan diinkoodii ha u laabateen aaba'doodii iyo ajdaaddoodii ay haysteen kuwa nuxur ka goobay abubakar iyo cumar iyo caaisho iyo xafso kufaar bay ahaayeen iyagana wax nuxura ma gaarayaan adduunyada iyo aakhiro wallah wax nuxura oo adduunya iyo aakhiro inaysan gaarin intay saas rumaysan yihiin ee ha ku soo laabteen diinkoodii aaba'doodii ajdaaddoodii wixii kabaa'ir ku dhacay nooc kasta ha noqotee ha ka tooba keeneen
wixii saqaa'ir ku dhacay ka tooba keeneen tooba keen jamaaci ah ayaan u baahannahay iyo istighfaar jamaaci ah oo waqti kasta leyla nahar inaan maarta ilaahay istighfaar weydiisano intii dhimatay oo masiibadaas ay ku degtana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu janneeyo ilaahay inuu u dembi dhaafo ilaahay inuu jannada ku shubo dadkii ay ka dhinteenna ilaahay uu samar ka siiyo oo uu badiil ka siiyo oo ilaahay uu qalbigooda ugu shubo sabar iyo raxmad baan ilaahay uga baryaynaa kelmadayda mushaaqadeedu waa intaas hada bila tawfiiq sala allahu wasallam ala nabiyina muxamedin wa ala alihi wasaxbihi wasallam جزاه الله خيرا إلهنا سبحانه وتعالى دعاء انتي دمتي الله أقبله إلهي هؤلاء حريستو إلهي شهادها وقدقو دبك يدونك كو أركان إلهي مد آخر ومدر انتي أي كتغانا إلهي هو حفظيو انت داوعانا إلهي سبحانه وتعالى داوعو ذا أبوكسيو ولا ليال مركا وحا مهمة دبك دعي علماء marba waa ka hadlaan wixii dhaca dhibka dhacay hadda wuxuu ahaa dhib ku saabsan dhiig daatay dhiig muslima oo daatay oo xaq darro ku daatay dhiigga muslimka oo xaq darrada ku daata weyninka uu leeyahay ilaahay agtiisa iyo diinka yaga iyo cuquubaha ka dhalan kara dhiiggaas daadashadiisa oo caamka ah ummadda saameyn kara labadaas kelimo oo insha Allah way iskaga dambeyn doonaan Sheekh Maxamed Yaasiin iyo Sheekh Nuur ayaa kelimada u dambeyn doonta marka Sheekh Maxamed Yaasiin aan ku hormarinay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انت لمتي الله ونحريستا انت لقد انتي الله قرقارو وحا كيرتا المغفرة بدنا أبهد انتي أقوم توبي oo guryahooda ku soo haray oo laga yaabo inay dayacaan yihiin hooyo fara badan oo dhimatay iyadoo ilmaheedii meel isla fadhiyaan baa jiri isla yuuraraan ayaa jiri karta dad badan oo dhaawac xanuunsan baa jira iyaguna oo isbitaalada iyo guryaha jiifa ilaahay ha u gargaaro sabarna Allah siiyo ikhwaanana mas'alada hadde waa laga hadlay culimadu waa ka hadashay in kastoo haddii la yidhaahdo si waafica looga hadlo oo hadalku iska soconayo aniga marka waxaan rabaa inaan ka taabto dhanka ah xurmatu dami lmuslim qofka muslimka ah dhiiggiisa xurmadda uu leeyahay ilaan dadka dhammaanayo geeridooda aan maqlaynaa dad muslimiina waaye marka dad bani aadama gacantooda unbayna sababteene waxa ay ku laadeen ama ku baabeen cudur ma aha marka qofkan muslimkee dhintaynana ama la dilaynana miisaan uu ilaahay agtiisa arrintiisa ku leedahay baa jirta qaatilka wax dilaynana ilaahay agtiisa meel buu ugu qiimaysan yahay waxaasoo dhan in la fahmo ayaa loo baahan yahay marka ugu horeyso diinteennan islaamka ah limaslaxati albashar bay usoo degtay dadka maslaxadooda dadka in maslaxadooda la ilaaliyo diinan wa dunyan dhanka adduunyada iyo dhanka diinta labadaba maxaa yeelay dadku adduunyada nolol wanaagsan inay ku noolaadaan waa u baahan yihiin oo raaxo laho idminaan iyo deganaansho laho iimaan leh diintooda inay u fiicnaatana waa u baahan yihiin oo adduun iyo aakhiraba ay ku nabad galaan marka diintan limaslaxati albashar bay usoo degtay 5 arrimood bay ilaalisaa oy xifdisaa 5taas mid kamida ayay tahay nafta qofka muslimka ahi
diinta waxay u soo dekay lixifdi diini diinta nafteeda in la ilaaliyo oo dadku ay noqdaan dad allihii abuurtay aaminsan oo ku xiran oo caabudaya wixii uu ka reebay ka haraya wuxuu amray fulinaya ay noqdaan sidaas dad ilaahay caabudayo inay noqdaan sidaasay xifdu diin baa la yidhahdaa nusuusta qur-aanku aad bay uga hadashaa waxaa kaloo diintu ay ilaalisaa maalka oo isaguna maslaxad weyn dadka u haya in la ilaaliyo la xifdiyo aan lagu dheelin nusuus fara badan baa soo aroortay waxaa kaloo diintu ay ka hadashay oo hala ilaaliyo ay tiri caqliga oo isaguna haddee qofku intuu caqliga leeyahay unbu waxyahay haddii uu caqli beelo isaga laftiisa wuxuu noqonayaa wax culaab iyo shiddo ku ah dadka kala noqonaya in caqliga la ilaaliyo wax allaali wixii maandooriya diintu waa tan xarimaysa way waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ilaalinaysa cirdiga iyo nasliga oo macnaa waxyaabaha faaxishada ee qofka dhaawaca u keenay sumcadiisa iyo wanaagiisa ceeb u keenayo dhaawacmayo qofkii khadka ka saarayo zinada iyo waxyaalahaas oo kaleeto waxaa kaloo diintu ay ilaalinaysa ay usoo degtay xifdul nafsi nafta in la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo oo aan la dilin biduuni sabab la-aan inaan la dilin sabab banaysay marka hadday jirto dilku waa fasahaad buu noqonayaa sababta baneynaysaana laga yaabay inay fasahaad kale tahay laakiin markii la isbarbar dhigo labada arrimood waxaa maslaxaddu ay gashay si fasahaadka naftani ay wada looga badbaado in naftii la dilo fasahaadka yar marka nafta dilkeeda u noqdo marka arrimahaasa jira diintan marka lixifdi nafsi nafta in la ilaaliyo usoo degtay haddii marka kulliyaadkaa la ilaaliyo naftu ay ka mid tahay dhib ma imaanayo maslaxaddii dadka ayaa soconaysa markii diintaa laga leexdana maslaxaddii dadka waa dhumaysaa hamaj baa la noqonayaa sida hadda dhacaysa oo kale iska soconayso horta guud ahaan inaan sidaas u baraarugno waa lagama maarmaan haddaba nafta muslimka ah laysat ka saa'iri nufuus qofka muslimka naftiisu nafyaalka kale lamid maaha muslimiinta dhexdood inay isdilaan ayagana waa la xarimay oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulku noo soo diray wuxuu leeyahay kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduhu qof kastoo muslima qof kasta weeya kullu min alfaadi lcumuum waay kullu lmuslim muslim oo idil cala lmuslimi qofka kale muslimka xaraamun damuh dhiiggiisaa ka xaaraana wa maaluhu maalkiisaa ka xaaraana wa cirduhu sharaftiisa inuu dhaawacaa ka xaaraana yani adiga waxaa kaa xaaraana qof muslim inaad dhiiggiisa gashid oo aada dishid waxaa kaa xaaraana qof muslima wax maalkiisa inaad qaadatid biduuni idnihi wa biduuni ridan minhu aada qaadatid ayaa kaa xaaraana waxaa kaa xaaraana wax kale iska dhaafay cirdigiisa hataa inaad xamatid odan wax kalaba yeelin maalkiisa qaadanin naftiisa wax yeelin inaad xamatid wax isaga uu kahanaya inaad ka sheegtid baa xaaraana waa fahmi karaysaa marka sheekh ya xanta nabigu wuxuu ku tilmaamay nabiga sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamay dikruka akhaaka bima yakrah walaalkaa muslimka inaad ka sheegtid wax uu kahanhayo intaasaa xaaraan ah oo min kabaa'iri dunuub dembiyada ugu waaweyn ka mid ah fa kayfa low qataltahu marka haddaad isagiiba dishood kow ka siisid ka warran marka ninka inaad xamatid aan lagu ogolayn inaad xamatid yaa isagoo kaa maqan wax uu nacayo inaad ka sheegtid aan lagu ogolayn asagoo dhaf haddaad kow ka siisid ka warran oo meydkiisa dhulka dhigtid ka warran waa wax qofkii wax miisaami karo iimaan iyo caqli saliim lihi oo aada u garanayo marka waxaa naga xaaraana qof muslim maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa intaba waa naga xaaraan rasuulkeena noo sheegay sala allahu calayhi wasalam
dadka muslimiinta dhaqan bay leeyihiin dhaqankooda waxaa weeyaan inay kala nabad galaan oo ay nabad ku wada noolaadaan oo nina dhanka kale uusan dhiiggiisa ballaysanin oo uusan dilin waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi sideedaba ninka muslimkii waxaa weeye ninka muslimiintu ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa bal xadiidkaa u fiirsada sheekh nabigaana yidhi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaana yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waa qofka muslimiintu ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa haddii dil iyadoo sidaa arrintu ahayd waxaasoo dhan intii laga gudbo kow la iska siiya ka warram ruuxii naftiisaba laga takhaluso waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam muslimiinta markuu u dardaarmay isku hadlay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay ha noqonina gaalo oo qolaba qolada kale qoorta ka garaacayso dad isdilaya ha noqonina waa dardaarmankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay ha noqonina gaalo oo qaarba qaarta kale qoorta ka garaacaya marka halkaa waxaad ka fahmaysaa dilku inuu yahay dhaqan gaalaad oosan ahayn dhaqan muslim ya isdilku inuusan ahayn dhaqanka muslimiinta ee uu yahay dhaqanka gaalada taasina meesha ayay ka muuqataa xadiid baa nabigu wuxuu ku leeyay sala allahu calayhi wasalam ani warkayga u nusuus buu isaga badnaan doonaa sheekh nuur baa malaha sii faahfaahin doonee lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli muslim min qatli rajulin muslim adduunkan oo dhan cirkiisa dhulkiisa baddiisa barrigiisa oo dhan oo rogmado oo baaba-o oo waxba laga waayo ayaa ka fudud ilaahay agtiisa hal qof oo muslim ahoo la dilo hal qof oo muslima la dilo adduunyo dhan oo baaba-da bixadaafiiriha oon waxba ka harin baa ka fudud hal qof oo muslim ah oo la dilo annagana agteenna maxaa maanta ka jira dilku waa jumlo iyo tafaariiq waa sidaa lafteed weeyaan dilka maanta dhexdeedna ka socda waa jumlo iyo tafaariiq waay marna waxaan maqalnaa boqolaal baa dhimatay mar waxaan maqalnaa 100 baa dhimatay mar waxaan dhimatay maqlaynaa isgoyskaasaa mid lagu dilay mar waxaan maqalnaa halkaasaa mid yaalla marka jumlo iyo tafaariiq jumlo iyo tafaariiq socotuu noqday meesha nabigu ka leeyahay sala allahu calayhi wasalam la zawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim hal nin arrintaa intay la egtay walaalayaal haddaan qalbi iimaan leh aan wax ku miisaamno muslim oo cadaalad sameynayo gar soorayo diinta ilaahaynana wax ku qiimeynaya haddaan nahay arrintan arrin intee la ego sheekh arrintaa arrin intee la ego nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay sidoo kale laa yazaalu rajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraam qofka muslimka ah diintiisa meel waasac ayuu ka joogaa ciriiri kama haysto intuusan dhiig muslim galin saasuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta haddaad dhiig muslim aada gashid diintaaduna ciriiri bay gashay wey arrintaasina waxaa weeyaan arrin runtii aada iyo aada loogu baahan yahay inaan ku baraarugno wey cuquubada ka dhalanaysa in qof muslima la dilo aayad qur-aan oo dadkao dhan ay wada garanayaan oo in badanna la isku wacdiyey ayaan kasoo qaadanaynaa inkaas axaadiid haddaan soo sheegnay nafsada ay tilmaamaysa aayaddii ku jirtay suuratu nisaa waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman ya
ما dadka wax dilayaan muslimiin ahayn mase kuwa la dilayaan muslimiin ahayn ilaahay wuxuu leeyahay qofkii qof muslim adila kas u dilo kas iyo maal u dila fajazaa'uhu jahannam abaal gudkiisa waa naarta jahannam fajazaa'uhu jahannam waliba wuxuu ri khaalidan fiiha aqwaashu culumada aayadaas ku sharaxday hada sii dhaxgali maayo waliba asoo ku waaray khaalidan fiiha ara ilaahay baa ku dhacday wa ghadiba allahu alayhi ara ilaahay baa ku dhacday ilaahay aradiisa ku dhacday wala'anahu ilaahay uu la'aday naxariistiisu ka fogeeyay wa a'adda lahu 'adaaban 'aziiman 'adaab binbu ilaahay u diyaariyay dadka dilka fududaysanaya sahashanaya nusuustan ayada ah inay aad ugu baraarugaan waa loo baahiyaa ilaahay qof muslim ah dilkiisa laguma sababe marka ikhwaanana hortu sidaas way qofka muslimka dilkiisu sidaas usan u sahlaneen uquuba sida u weynina ay ka dhalanaysa hadii dilkaas oo kale uu dhaco marka wax uu ku dhiiran kara ma aha dil qof muslima illa qof iimaan leh wax uu ku dhiiran karaya ma aha sidoo kale dili hadii uu dhaco waxa ka dhashay la uquubadaas nusuustu ka hadashay ka sokow waxyaabo kale ka ratibmayaa jira wixiina maanta ma socdaan oo maxaa ka mid ah qof baa qof dilay sharciga ilaahay muxuu yahay ya kasbu u dilay sharciga ilaahay muxuu yahay in la qisaaso Soomaa asagana la dilo boqol baa dhimanaysa waa la kala tagay idaacadaha laga sheegay fi waxa la soo dhigay YouTube ka la soo dhigay meeshay ku dhamaatay qofka qof dilay waxyaalaha ka laazimaya dilkiisa waxa kamida diya ayaa jirta oo ay leeyihiin adiiba maartay marka qaarkood ay leeyihiin dadkii qofkoodu dhintay in idaacadaha laga dhageystay iyo in dad darisiihu marka ay qoyski u booqdeen ayay ku dambeynaysaa qofkoodii la dilay qisaas male diya male islaamta iyo ilmaheeda meesha isla aadayaan iyaga garanaya halkaas ay ku dambeynaysaa warkuna meeshaas ku haray marka waxa weeyaan yani waxa socda wax aadi ah qofkii waa la dilay jariimada waa la galay dadkii ka haray oo dadkiisa ahaa xuquuqdoodii qofkooda hadii la dilo ay heli lahayn lama helin marka inta dambi oo la galaya waxa weey wax aadi ah waxaan dhici karnaa marka dhihi karnaa istimraariyada arrintan oo iska socoto dhibaatadan aan ka bixilaanahay dhiigan islaamka iska socdo oo waliba la fududaystay oo hadda aad baba meeqay ahaayeen tirada layla isweydiinaayo ya ayaaba u sababaan dhihi karnaa ilaa taas laga fududaysigan laga laabto sida culimada iga horeysay ay sheegtay toobadkeen lala yimaado meesha waxa weey wax ka imaanay bare xadiis baa jiray aan xogaa ka booday oo hadda lafdigiisa aan aad dusha uga haydin laakiin macnihiisu wuxuu ahaa ya man istata'a minkum alla yahulana baynahu wa bayna aljannati ya kafu mil'u kafin min damin haram yani ninkii awoodo inuuna kala dhaxgalin asaga iyo jannada ay saabkiisa mugi oo dhiiga u galay inayna kala dhaxgalin ninkii awooda ha sameeyo arrintaas macnaha hadiidkaas maxaa macnihiisu yahay wuxuuna tusinayaa qof dhiig yani saabkaaga mugiisa kafkaaga hal ala al mugeedo dhiig muslimo oo daarisay adiga jannada inay idin kala dhaxgalayso marka ilaahay aynu ka baqno ilaahay aan u toobad keeno inta wax dilaysa ilaahay ha uga toobad keenaan dilka ummadda ma garanaysa kalena allah u toobad keeno maxaa yeelay hadaanan anagu macaasida ka toobad keenin uquubada dadkaasi waxyaalaha dadkaasi ay sameeyeen uquubada ka dhalatay ayaa lagu habsanaysa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum khassa hada wa billahi tawfiq sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولماذا أيها رمتي موضوعي لنعيديسي كالدونا لما يستيري أنا كلمة داس وقدم بيضا الشيخ محمد أيام وحي الرعسين أيام وكسابسا ليغا مسلمكا دادين تيسا عقوباتك كدلانيا الله سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تهو ناديي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي مؤمنين توهو أمري إن أي الله كبقان نفوال بانا أي كفير ستو عمل كأيمان تسمين أيضو وبرق قيامي أي أهر مرين أيضو قفك مؤمن كوحا وسمين أيضو وحا كدلنا وإنو فيريا ضدك مسلمين تالين تودا وحا كدلنا أيضا آثار أمرات حن وقفك الشخصية ديسا الدون إيا آقرك قارئة iyo mid guud oo muslimiinta dhan dib adduunka uga soo laabanaya nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam xadiis laga wariyay imaam muslim saxiixiisa ku soo saaray nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood uu habeen ilaahay ka bariyay waxa kamid ahaa allah yusallida alayhim aduwan min ghayrihim yastabihu baydatahum إلهي وإنا وحن كبريور النبي صلى الله عليه وسلم إن أن إلهي أمد مسلم كاكوصلدين عدو أن مسلم أهين أو قالأ أو مركز بنايستا أمد وحي وردي سنيين دين كودي نفتودي مال كودي يشرفتودي وحي أمد أي وردي سنيدي إن أن إلهي كوصلدين عدو بنايستا نبي وحيري صلى الله عليه وسلم رب العالمين وإيغا أقبل وحيري مكو صلي ذيو عدو أو بنايستا بيضادو ده ولو هدو ربا عدو واسوها اسكاقي مادو جهوين كدول كدمان مدعي كرتو أمت مسلم مدايسان ميلكو سوغان عدو ميلك لكيمت إنو أيغا دان عرب قويو لكن وحو كحيري شردي وحي تاي إن أن أيهو إسلاين حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا أرنتاس غايو وحو أغدقاي وإن أن قبل كود قبل ككله هلاقين أو دلين قبل كود قبل ككله أوسن قفالا حتى يدعضو إن أيها مسلمين تأه أي إسلايان oo dad muslim ay muslimiintii kale laayaan ama ay qafaashaan waxaa imaanaya in ilaahay ku sallido cadow kale oo meel kale ka yimid oo baabi'iya wixii ay ummaddu waardiyeysanaysay oo diin oo naf oo maal oo sharaf ahna banaysta idan waa in uu ku xisaabtamaa maadaama ilaahayna amray inaan isxisaabino intuusan xisaabin qof kasta oo muslim waa inuu ku xisaabtamaa laynta dadka muslimka waxa ka dhalanaya waxaad ogaataa qofkaaga muslimka ee waxaan sameeyay ama ku fakaraya maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalanaya shantii aayadda Allah ku sheegay aday ku gaarta oo ilaah inuu jahannama ku galiyo oo aad ku waarto oo cara alla kugu dhacdo ilaahayna naxariista ka durjiyo cadaab weyna ku diyaarsado waxa ku gaar sayi'ada qofku marka uu sameeyo waxa shu'migeeda kamid sayi'adaasu inay u sabab noqoto inuu dambi kale ku dhaco qofku markuu dhiig muslim ku dhaco ee koobaad berri wuxuu ku dhacaa kii mid ka xun hadduusan toobad keenin marka adduunka ka fogaansho alle iyo in ay kula fududaato macaasida oo ilaa marka dambe aad sameeydo wax aan la suuray karin qof ilaah rumaysan inuu sameeyo taasaad adduunka ku gaaraysaa
aakhirana waa midda ay ka dhalanaydo shanta aayaddu sheegtay waxaa kaleeto oo xadiiska nabigu noogu sheegay sallallahu calayhi wasallam nabiga oo aan iska hadlayn ee wuxuu ku hadlayaa waxyi ay yihiin mar hadday dhacdo muslimiinta in dadka mid uu muslimkii kale baabi'iyaan waxaa ka dhasha oo raad ah oo ummadda muslimka ku dhaca ummada acdaa ku ah oo ummadan diinkooda cadow ku ah oo naftooda cadow ku ah oo dawladnimadooda cadow ku ah oo jiritaankooda cadow ku ah inay soo aadaan oo ay sabab ka dhigtaan oo ay diintooda baabi'iyaan oo ay maalkooda baabi'iyaan oo ay naftooda baabi'iyaan oo ay cirdigooda baabi'iyaan waxay raadkaasu ka dhashaa uu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam isbaabi'inta haddaba walaalle marka ay timaado taas ee ummadan acdaa kala duwan ee danale ay dhinacyada ka soo galaan adigana aad sabab u tahay nabi maxamedna uu yiri sallallahu calayhi wasallam waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man amila biha ila yawm alqiyamah qofka dariiqa xun bilaaba dariiqadaas inta uga dayata iyo waxa ka dhasha waa isaga dushiisa ilaa qiyaamo laga gaarayo dhammaan waxa acdaadu ay ku sameeydo ummadda in dushaada ay tahay waa inaad ku xisaabtantaa oo ay camalkaagii ka dhalatay bal suurayso ilaahay wejigiisa adoo taagan oo aan koox kula socon oo aan qabiil kula socon ee lagugu soo maxkamadeeyay 100 qof ee muslimiin ee saaka salaadii subax tukatay ee socota ee meeyday adigu aad dishay bal suurayso adoo qaawan oo cagacado wejiga alle taagan oo lagugu soo maxkamadeeyay 150 500 400 oo dhaawac ah oo ilaahay wejigiisa la rabbiyo weydii bal wuxuu ugu dilay ama aan ka haystay bal suurayso marka dadka dan leedahay oo qof dan le aad tahay oo rabbi dan ka leedahay oo doonayda adduunka alle inuu ku gargaaro ama aakhira uu ku gargaaro waa loo gargaaraa masaakiinta lama laayo nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhihi jiray ii raadiya ducafada fa inna ma tunsaruna wa turzaquna biducafaikum wax kale ilaahay inuu kugu gargaaro laynu kumara risaaqo waxa kaliyo laynu kugu gargaaraa oo laynu ku risaaqa dadka ducafada ah in la gacan qabto in la quudiyo saasa lagu gargaaraa dan maleedahay izza marabta u gargaar muslimiinta naftooda ilaali maalkooda ilaali sharaftooda ilaali kooda baahan quudi hadilin ha argagixin hana dilin subhanallah miyadan ilaahay dan kala hayn soo qabri iyo qiyaamo marhumaysnid bal waxaad ku xisaabtantaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiiski bukhari iyo qeyrkiis ee markuu mucaad dirayay wattaqi da'wat al-madlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab wuxuu ku yiri qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali maxaa yeelay qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iyo alle waxba uma dhaxeeyaan ila wuxuu leeyahay la'ansuranaka walaw ba'da hin waan ku gargaaraya waqti kadib aan noqotay waxaad suuraysataa bal boqolaal masaakiin ah ee agoon ah ee qofkii u shaqaynayay saaka ama asagoo shaxaad doona ama wax kale oo la mid ah nolol ka raadinayay wax hantiyo raasumaal aan lahayn saaka ay waayeen caawa agoontaas markaad adigu hurdaydo 9 saac ee rabbi leeyahay man yad'uni fa astajiba lah man yastaghfiruni fa aghfir lah man yad'uni fa astajiba lah man yad'uni فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له مركو ربي ليهي الضوامدا صدام اي ليهين إلهي وحنا لكو قلي من نقاني نقاقبو محاد سويدا دمانتود أبو وطورينيسا أيقنا انت إلهي أسجودان اي ليهين إله وحنا الكدر من نقان انتاس أغانها اسكو صهرتان نهي إلهو نوغا قرقار محاد ملايسانيدا maxaad malaysanaydaa hooyadii caruurkeeda wax ku bartay sheeh ay gado iyo aana ay wareejiday ee dugsare ka saartay jaamacad u dhiganayay
ee hilbihiis loo keenay naftu qaarka hore uga jirto intuu nool yahay culays saaran ah maalintay sugayday ayada inuu wax u taro maalintaas hooyadaasu gacmaha taagto ee ay leedahay allow ii gargaar maxaad ilaahay agtiisa ka sugaydaa adduunka ma waadan dan ka lahayn aakhira ma waadan dan ka lahayn rabbi aan ka baqno oo dadka muslimiinta qofka qabri iyo qiyaamo rumaysanow war dadka dhiigooda badbaadi oo naftooda badbaadi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan kelimadayda ku qatimayaa laba kelimo dhammaan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed xeelad iyo xoog oo dhibka la iskaga rafciyo waa naga dhamaaday waa inaan ilaahay u tadarrucno oo qof walba sujuud ilaahay ku bariyo ilaahay inuu naga rafciyo cadaabka waa cadaab waxaanu yahay ilaahana amrahu le ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ilaahay ibaryu leeyahay ballankana kama baxo waan in ka aqbalahu leeyahay marka ilaahay wa inaan si tadarruc leh qof walba asagoo kaligiisa khaasatan adinka iyo aqinka dhexdiisa iyo waqtiga saqada dhexe sujuuda ilaahay aan ugu tadarrucno ilaahay inuu cadaabka naga qaado iyo culayska nasaara qodobkaas qof walba waa inuu kaligiis ilaahay u sheegto si ilaahay culayska nooga qaado ballan weeye ilaahay ballankana alla kama baxo taas waa kelimada koobaad waa inaan ogaano inaan faraj kala jirin kelimada ugu dambayda kelimadii Sheekh Axmed Yaraan ku sii ayida oo ah xaaladda noocaas dadka dhibkaas ku dhacay dad ka faa'iideysanay oo raba in ay ummadda qadka ka sii lumiyaan oo ilaahay ka sii fogeeyaan oo ay leeyihiin shirkiga iyo bidcada markii makhluuqa la bariyo dhibka laga bixi jiray ee dadka waxa dhibka u keenaya ilaahay kaliya hal la bariyo ilaahay kaliya hal la bariyo wartaasu sax miya ilaahay wayna aan ka cabsano nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay idaa sa'alta fas'alillah markaad wax weydiisaydo allah weydiiso وإذا استعنت فاستعن بالله حتى كلمة ضلب الله كلمة كالضلب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أقول حتى مخلوق وننكل ما إلي وحكو ترانكم أتركنا وحن ألا كو قرين حتى يأكل ما إلي كو دبانكم أدبكنا وحن ألا كو قرين مخلوق إنك إرسطو أو أدقرقار كالضلبتا وحوب عارو ساسو كلي يا ربي marka war ummadda yaan laga leexin qadkooda qadka oo ilaahay ku xirma ilaahay aan u leexano ilaahay wajigiisa kalimadan la taaganahay salaada oo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaahu kaliga aan ku caabudayna kaliga aan kaalma ka dalbayna yaana ka leexan ayadan ku dhimanno bulshooyay ila ku dhimanno marka labadaas kalimaan ku qatimaya إلهي أسماء صفاتي سبحانه وبرينا عذابك إنه نقد القاضي إلهي أسماء صفاتي سبحانه وبرينا إلهي أنت لما تنمون حريستو أنت داوعنا أو عافيو أنت أقومت إلهي أوكبو كوا قراب كان إلهي أوكبو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد